السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barnaamijka maanta waxaan ku soo qaadan arrimo badan oo la xiriira indhaha sida sheekada haweeneyda araggeedu qalliban yahay iyo warbixino kale oo la xiriira aragga. Ilaahay ayaa na faray inaan fiirino oo ku fakarno sida uu annaga iyo makhluuqaadka kaleba u abuuray. Waxaa dhacda in dadku inta ay caafimaadka qabaan aysan dareensanayn sida cajiibka ah ee uu jirkeenu u samaysan yahay. maalintii xubin muhiim ah uu qofku ka xanuusto ayuu dareemaa faa'iidada ay u haysay. haddaba maanta waxaan soo qaadan macluumaad aan ka soo aruuriyey isha. Ishu waxay ka kooban tahay dhowr qaybood oo ay tahay inay wada shaqeeyaan si qofku wax u arko, sida qaybta cad oo ilaalisa qaybaha kale kana qayb qaadata saliidaynta iyo qoyeynta isha, iyo dhalada iftiinku ka gudbo ee cornea ama qarniyada oo iyadu ilaalisa birta isha ama daloolka madow ee bartamaha ku yaal. daloolkaas la dhaho pupilka ayaa waxaa ka gudba iftiinka qaybta dambe ee isha u socda. daloolkaas ayaa waxaa dhinacyada ka xigta qaybta kalaraysan ee isha oo kalarada ay leedahay dadku ku kala duwan yihiin, iyo weliba xuubka aragga oo isha gudaheeda ku yaal lana dhaho retina oo iftiinkaas u gudbiya neerfaha aragga ee optic nerve. ishu haddii uu neerfahaasi go'o aragtideedii waa dhimatay oo cilmiga maanta yaal wax lagu daweyn karo ma jiro neerfahaas. laakiin haddii optic nerfuhu uu caafimaad qabo, qaybaha kale ee isha waa lala tacaali karaa oo qalliimo badan ayaa sanad walba adduunka dacaladiisa ka dhaca oo dadka lagu tallaalo qaybo isha ka mid ah. qalliinada ugu yaabka badan ee isha ayaa waxaa ka mid ah qalliin qofka in ilkihiisa mid ka mid a intii laga soo saaro lagu beddelo qaybta cad ee ishiisa, sida ninkan la dhaho Martin oo dhowr iyo 10 sano indho la'aani ku dhacday markii uu shil galay. dhakhaatiirta ayaa ilkihiisa mid ka mid a intay ka soo saareen geliyeen meesha indhihiisa, daloolkii iyo bikaacdii ishana uu habeeyey. markii uu qalliinku dhammaaday ayuu ishaasi si caadi ah wax ugu arkay maadaama ay optic nerfuhu caafimaad qabay. dadkii hore ayaa waxay aaminsanaan jireen in si wax loo arko ay fallaaro iftiina isha ka yimaadaan, taasna noo fududayso inaan wax aragno. laakiin waxaa isweydiin mudan haddii arrinku sidaas yahay oo fallaaro isha ka imaanaya ay keenayaan inaan wax aragno, maxaa keenay in meelaha mugdiga ah aanan waxba arki karin? jawaabta saxda ah ee aragga ayaa waxaa bixiyey caalin muslim ahaa oo la oran jiray Xasan ibnul Haytham oo noolaa 1000 sano ka hor. waxa uu ibnu Haytham arkay arrin anoo ilmo yar ah aan arki jiray. guriga aan deganayn ayaa waxaa saarnaa saqaf jiingad ah. jiingadaas ama tarniigaas ayaa waxa ay lahayd daloolo yar oo mismaaro ka soo baxeen. haddaba qorraxdu marka ay qabato ayaa iftiin yar ah ka soo geli jiray. mararka qaarkoodna iftiinka ka soo galaya dalooladaas ayaa noqonayay mid kala baran oo haaf ah. markaa ayaa waxaan garan jirnay in qorraxda qaybteed ay daruuri dabooshay. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dalooladii ka soo galay iftiin kala baran iyadoo aan daruuri jirin. markaas ayaan waxaan aragnay in qorrax madoobaad uu dhacayay. qorrax madoobaadkaas ayaa annagoo qolka gudihiisa ku jirna ayaan arkaynay oo dalooladaas yaryar ayaa noo soo gudbinayay. ibnu Haytham ayaa la yiri arrin sidaan oo kale ah ayuu arkay. markaas ayuu intuu fakaray waxa uu yiri, maadaama uu iftiinkaasi soo gudbiyey qorrax madoobaadka, indhaheennu waa sidaas oo kale oo iftiinka ayaa noo soo gudbiya waxyaalaha aan arkayno. markii uusan iftiin jirinna waxba ma arki karno oo mugdiga indhaheenna waxba ma arkaan. tafsiirkaas ayaa ah arrinta saxda ah ee sida aan wax u aragno. iftiinka ayaa shayga ku dhaca oo markaas isheennu u soo laabta, taasoo keenta inaan aragno shaygaas. marna ma isweydiisay maxaa keenay in dhalooyinka qaybtood ay dadku ku dhacaan oo ay arki waayaan? iftiinka badankiis ayaa dhalada ka gudba, taasoo adkaysa in si fiican loo arko. iftiinkaas ka gudbay ayaa waxa uu ka dhacaa waxa ka dambeeya markaas isheennu ku soo noqda, taas oo noo fudaydisa inaan aragno waxa dhalada ka dambeeya. ibnu Haytham aan u soo laabanay ayaa la yiri waxa kale uu arkay arrin kale oo yaab badan markii uu kartoon uu dalool yar u sameeyey uu soo gudbiyey qorrax madoobaadkii. waxa uu arkay in iftiinka qorrax madoobaadku markii uu daloolka ka soo gudbo uu qalliban yahay. haddii qorraxdu qaybteeda midig ay madowdahay, iftiinka daloolka qaybtiisa bidix ayaa madow oo waa sawir gadoonsan. haddii qorraxdu qaybta hoose madowdahayna, iftiinka daloolka qaybta sare ayaa madow. sidan ayuu ku fasiray arrintaas. fallaarta iftiinka ah ee ka timaada qorraxda hoosteeda hadday toos u soo socoto
waxa ay tagaysaa sawirka korkiisa. Markay daloolka ka gudubto, falaarta iftiinka ee kor ka timaadana waxa ay ku dhacaysaa hoos. Waxa uu isweydiiyey indhaheennu maxay sidaas oo kale wax ugu arki waayeen oo aan u arki weynay sawir foorara. Cilmiga maanta ayaa waxaan fahansanahay in indhaheennu ay sidaas oo kale wax u arkaan, laakiin ay u gudbiyaan maskaxda. Maskaxda ayaa waxay indhuhu arkaan fasirta, iyadoo mararka qaarkood wax ishu aragtay ay maskaxdu ka dhigto inaadan arkin. Mararka qaarkoodna laba shay oo isla eg maskaxdu u fasirto inay kala wan yihiin. Sida gawaaridan kulligood isla eg yihiin haddaad dhererkooda iyo ballacooda cabirtid, laakiin maskaxdu ay ka dhigayso inay kala wan yihiin. Sawirka qalliban ee ishu u gudbiso maskaxda ayaa waxaa la socda sawirka neerfayaasha isha mara. Maskaxda ayaa waxaas oo dhan ka saarta sawirka oo habaysa. Qaybta dambe ee maskaxda ayaa waxa ay ku shuqul leedahay aragga, iyada oo dadka qaybtood ee jug maskaxda qaybteeda aragga ku shuqul leh ka gaartay lagu arkay xaalad cajiiba. Dadkan iyagoo indhahoodu aysan shaqaynayn oo indhool rasmi ah ayaa waxa ay leeyihiin wax ayaan arki karnaa. Markii ay isdhahaan socdana waxa ay ku dhacayaan derbiyada. Xaaladdan ayaa waxaa la dhahaa Anton Babinski syndrome. Dadka qabana ayaa iyagoo indhool ah u maleeya inay wax arkayaan. Jugta maskaxda ka gaartay ayaa shaqadii maskaxdooda khalkhal gelisay. Waxaa jira iyaduna haweeney Serbiyaan oo leh sheeko cajiib ah. Waxa ay aragtaa wax foorara. Haweeneydan oo la dhaho Bojana Danilovich ayaa joornaalada markay akhrinayso si fooraran u akhrisa. TV-gana waxay daawataa isagoo hoos loo jeediyey. Saynisyahanada oo xaaladeeda baaritaan ku haya ayaa waxay leeyihiin waxay u badan tahay in maskaxda qaybta aragga maamusha ay u badan tahay in ay sawirka foorarinayso. Haweeneydan ayaa waxay tiri inta badan dadku ay la yaabaan, laakiin aniga araggaasi si caadi ah ayuu ii yahay. Sababtoo ah tan iyo waagan yaraa sida tan ayaan wax u arkay. Qiyaas ahaan 40 milyan oo indhoola ah ayaa ku nool dunida. Waxaa dadkaasi ka mid ah Daniel Kish oo ah nin indhoola ah, isagoo yar indhaha kansar kaga dhacay, taasoo keentay in indhaha laga saaro oo uu sidaasi ku indhabeelo. Laakiin sidaas oo ay tahay ninkani keligiis ayaa magaalada aada oo xataa waxa uu wadi karaa baaskiilada. Oo haddaad isweydiisid sidee bay ku dhacday in nin indhoola ah uu keligiis u socon karo, ayaa waxa uu ninkani isticmaalaa codkiisa. oo dhawaaq yar ayuu afka ka sii daayaa. Codkaasi haddii uu derbi ama shay ku dhaco, dhegtiisu waxa ay garanaysaa inuu derbi ka horeeyo, markaas ayuu ka leexanayaa. Arrintan ayaa waxa uu isbaray ilaa markii uu carruurta ahaa, isagoo ay dhegihiisu isla marka uu codka afkiisa kaga dhawaajiyo garanayaan inuu waddo furan marayo ama derbi ka horeeyo. Waxaa iyaguna jira noolayaal aan indhaba lahayn oo indhuhu ka maqan yihiin. Noolayaashan ayaa inta badan waxay ku nool yihiin godad mugdi ah oo aan waxba la arki karin. Marka indhuhu waxba uma tarayaan maadaama ay noloshoodoo dhan ay ku qaataan mugdi aan waxba la arki karin. Marka waxay isticmaalaan dareennadooda kale. Waxaa ka mid ah kalluunkan ku nool godad ku yaala Brazil oo aan indhahaba lahayn, iyo caaradan aan indhaha lahayn ee ku nool godad ku yaala gobolka Hawaii ee waddanka Mareykanka. Waxaa kaloo ka mid ah xayawaanada aan indhaha lahayn, xayawaankan la dhaho star-nosed mole ama sanxidigle. Waxa ay ku nool yihiin webiyada dhinacyadooda, iyagoo godad dhulka ka samaysta. Waxaa sanxidigle loo yiri qaab xidig u eg ayuu wajigiisa ku leeyahay, isagoo dhaqdhaqaaqa hareerihiisa kula socda. Waxa uu xayawaankani adeegsadaa sankiisa oo isagoo biyaha ku dhex jira ay u soo uraan wax aad uga fog. Xayawaanada ayaa qaabab kala duwan oo cajiiba u seexda oo ka duwan sida aan annagu u seexano. Qaybtood ayaa waxa ay seexdaan iyaga oo il ka hurda, isha kalena ka soo jeeda. Xayawaanadaas ayaa waxaa la yidhi maskaxdooda qayb ayaa hurda, qaybna waa soo jeeda. Waxaa xayawaanada ka mid ah fiidmeerta noocyo ka mid ah, iyo xayawaanada naasleyda ee badda ku nool sida dolphinka, maadaama ay u baahan yihiin in dhowrkii daqiiqaba ay badda kor uga soo baxaan si ay hawada uga neefsadaan. Barnaamij maalin dhaweyd ayaa waxaan ku soo qaatay libaax badeedka noocyo ka mid ah inay khasab ku tahay inay socdaan si ay u neefsadaan, maadaama ay oksijiinta biyaha ka qaataan. Biyahana aysan soo noogi karin, taasoo ku khasabta inay socdaan si biyaha ay afka uga galaan, markaana oksijiinta ku jirta ugala haraan. Waxaa la ogaaday inaysan hurdo weyn u baahnayn oo markay hurdaan xataa
ay soconayaan oo aysan istaagin. Indhuhu waxay ka mid yihiin nicmooyinka uu Ilaahay nagu manaystay marka aan ku xamdi naqno ugana faa'iidaysano wixii cilmi iyo khayr ah. intaas noogu joogto barnaamijkii maanta intii aan mar dambe kulmi doono. nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullah.